السلام عليكم دمانتين saaxiibada sharafta badan filimku wuxuu ku bilaamayaa qoyska badmareen Tom xaaskiisa Julia iyo labadooda caruur Casey iyo Ben oo saaran doon bartamaha badda Caribbean-ka iyadoo aabaha iyo wiilku ay ku mashquulsan yihiin kalluumaysiga Caseyna ay ku mashquulsan tahay qalabkeeda ayaa Julia waxay aadaysaa dabaal isla markiiba waxbay dareentay hareeraha ayay eegtay laakiin baddu way iska degan tahay si kastaba ha ahaatee waxay bilaabaysaa inay dareento walaac sida inay wax weyn oo halis ah ay ku hareeraysan yihiin waqtigan xaadirka ah aaladaha ku jira doonida waxay bilaabayaan inay u shaqeeyaan si la yaab leh laakiin Tom maadaama uu ku mashquulsan yahay kalluumaysiga waxba lama socdo dhanka kale Julia waxay dareemaysaa argagax xun oo ka sii daraya ugu dambeyntiina waxay bilaabaysaa inay hafato way qaylinaysaa laakiin reerkuma maqlayaan iyada biyuhu waxay u muuqdaan inay bilaabeen socod waxayna Julia u sii qaadayaan meel dheer oo ka fog doonta markay xaaladdu noqoto mid halis ah Tom ugu dambeyntii wuxuu maqlayaa codkeeda steerinka ayuu ku yaacay doontiina wuxuu u shiraacday dhanka xaaskiisii dhibaataysnayd Tom wuxuu ku boodayaa biyaha isagoo kaashanaya caruurtiisa ayuu ka soo saarayaa biyaha oo uu badbaadinayaa Tom wuu xanaaqay intaa kadib wuxuu had iyo jeer ku oran jiray markaad dabaasha u baxayso kuwa kale ogeysii inaad biyaha galayso Julia raaligelin ayay bixisay dhacdadiina waa la iska ilaaway waxaa intaa dheer qoysku waxay heleen war ay ku farxaan oo ah in wiilkooda Ben uu 13 sano jirsanayo maanta Tom wuxuu shidayaa shumaca keega qof walbana wuxuu u hambalyeeynayaa Ben kaasoo bilaabay inuu aqbalo hadiyadaha Casey ayaa sawir kooxeed ka qaadaysa qoyska faraxsan isla markaa gabadhu waxay saaxiibkeed ka helaysaa wicitaan maqal iyo muuqaal ah wuxuu ka wareysanayaa safarkooda markaasoo ay dabeyl kedis ah oo xoogani ka bilaabatay gadaashiisa Casey way welwelsan tahay laakiin saaxiibkeed wuxuu u xaqiijinayaa inuu bid qabo isla markaa kadib khadka isgaarsiinta ayaa go'aya Casey waxay waalidkeed u sheegtay duufaanta baan ee dhulka ka jidha kadibna qof kasta wuxuu bilaabayaa inuu dareemo nooc ka mid ah gariir waxay ku soo yaaceen sagxadda sare waxayna arkeen nibiriyo waaweyn oo sabaynaya doonta hareeraheeda Tom wuxuu sharxayaa in mararka qaarkood nibiriyada ay biyaha ka soo baxaan duufaan darteed laakiin xayawaanadii waxay bilaabeen inay riixaan doonta oo ay khatar geliyaan ammaankeeda Tom wuxuu si dhaqso ah ugu boodayaa biyaha kadibna ku soo laabtay sagxadda doonta isagoo soo dhaawacmay intuu isku dayayay inuu soo arko waxa jira ayuu isku jaray birtii uu sitay Julia waxay tulaysaa dhaawaca garabka ninkeeda ku yaala wuxuu u sharaxay in sida muuqata jug ka soo gaadhay nibiriga ay ulaha doontu qalocsan yihiin oo hadda uma badna inay laaban karaan kadib Casey waxay isku dayaysaa inay samayso xiriir isgaarsiin laakiin ma jiro shabakad taarka gacantana sidoo kale ma soo qabanayo wax anteeno ah Tom wuxuu bilaabay inuu tiriyo sahayda waxaa jiri doona biyo ku filan 4 maalmood oo kaliya ma jiri doonaan biyo dambe laakiin waxay ku socdaan dariiqii doomaha markaa hubaal qof bay heli doonaan si kastaba ha ahaatee dhawaaqyo hanjabaad ah ayaa laga maqlayaa dibadda oo marka uu qoysku u soo baxo dusha sare waxay arkayaan walxo dhalaalaya oo cirka ka soo dhacaya walxaha ayaa soo dhawaanaya marba marka ka dambaysa Tom isagoo khatarta dareemaya ayuu daaray mashiinka doonta wuxuu ku guuleystay inuu doonta ka fogeeyo dhagax cireedka kale laakiin matoorka ayaa si buuxda u burburaya dhagaxa xiga ayaa ku dhacaya meel iyaga u dhow oo ay arki karaan kuwani waa dayax gacmeedyadii macmalka ahaa ee dhulka dabayl xoog leh ayaa ka bilaabmaysa dibadda qalabkuna wuu isku dhex yaacayaa qoyska oo argagaxsan ayaa ku dhuumanaya gudaha doonta taasoo ay rideen hirarku waxay xiranayaan jaakadaha dabaasha oo ay u diyaar garoobayaan khatartii ugu darnayd markay maqleen dhawaaqyo yaab leh kaasoo ka dhigaya inay dareemaan lalabo oo ay sanka ka dhiigaan Tom wuxuu isku dayayaa inuu fleergan ku wacdo caawimaad laakiin dhammaan waxba uma tarin reerku habeenkii si dirqi ah ayay ku badbaadayaan subaxdiina waxay soo tooseen iyagoo ku faraxsan in qof kasta uu nool yahay si kastaba ha ahaatee waxaa jira dalool aad u weyn oo ku yaala dhinaca doonta mana cadda sababta ay weli u dul saaran yihiin reerkii banaanka ayuu u soo baxay oo ay yaab dartii la barafoobeen ma jiraan wax biyo ah oo ku hareeraysan doontii ay wateenna waxay taagan tahay buur dhagax ah oo ku dhex taala saxare dhagax ah oo ay baddu isu rogtay wax yar kadib Tom wuxuu isku dayayaa inuu dhiirigeliyo qoyska isagoo sheegay inaysan macquul ahayn in gebi ahaanba dadka oo dhan ay wada baaba'een cabir buu qaaday oo gartay in jihayuhu uu been sheegayo jihada waqooyi ma aha meeshii la rabay taas macnaheedu waxa weeye in cirifyada dhulka ay isbedeleen waana wax hore u dhacay laakiin ahaa waqti aad u dheer ka hor waxaa soo baxday in badii ay u dhaqaaqday meeshuu dhulku ahaa oo ay u badan tahay in bani aadamku baaba'ay Casey ma xamili karto xaqiiqooyinka noocaas ah oo u carartay qolkii iyadoo codsanaysa in kaligeed looga tago meesha Julia waxay u baxaysaa inay tiriso sahayda u hadhay Benna wuxuu samada u dirayaa buufino midabo leh oo fara badan isagoo rajaynaya in dadka badbaaday ay u iman doonaan si ugu gargaaraan Tom wuxuu daarayaa taarkiisa isagoo diraya fariimo caawimaad oo si lama filaan ah ayuu u maqlay jawaab kani waa Now oo ah kabtanka gujis yar isaga iyo saaxiibkiis waxay joogeen gunta badda markii ay musiibadu dhacaysay nasiib wanaagsan way ka badbaadeen dhacdadan argagax leh
si kastaba ha ahaatee hadda ma jiro nidaam shaqaynaya waana nacasnimo in la rajaynayo badbaado iyo samata bixin marka loo eego xisaabintiisa baddu waxay ku soo noqon doontaa toddobaad gudihiisa aad bayna u adkaan doontaa sidaa darteed ninku wuxuu ku talinayaa inay raadiyaan meel sare oo ay isku dayaan inay sii joogaan Julie waxay u sheegtay carruurta inay alaabtooda xirxidhaan Tomna wuxuu si toos ah u weydiiyey kabtanka haddii ay badbaadin karaan carruurtooda kabtanku wuxuu sharxayaa in doonta gujisku ay aad u yar tahay shil ahaan kabtanka saaxiibkiis ayaa dhintay wuxuuna qaadi karaa hal qof oo kaliya laakiin kadib markii Tom uu qanciyay wuxuu ogolaaday inuu qaado carruurta oo uu u tilmaamayaa goobta uu joogo Tom wuxuu sahminayaa shaxanka jidka badda waxaana uu ballan qaaday inuu goobta ku gaari doono 2 maalmood gudahood subaxdii xigtay qoysku wuxuu diyaar u yahay geediga 2 maalmood Tom wuxuu u soo baxay sagxadda doonta oo wuxuu si lama filaan ah u arkay nin ay wata oo soo socda wuu u tagayaa suu si wanaagsan u salaamo markuu arko in ninku dhaawacmay Tom wuxuu ninka musaafirka ah siiyay biyo laakiin ninku wuxuu cabayaa biyihii oo si lama filaan ahna wajiga uga garaacay Tom Julia way aragtay dhacdada oo waxay u soo yaacday ninkeeda halka musaafirkiina uu waran gacan ku samays ah uu laabta ka geliyay Tom aygu wuxuu ka hor istaagayaa Julia inay u soo dhawaato laakiin waxay la barafowday cabsi iyadoo ogaatay in ninkeeda aysan caawin karin waxay u cararaysaa doontii ninkiina wuxuu bilaabayaa inuu soo eriyado wuxuuna ka dhaawacayaa gacanta si kastaba ha ahaatee Julia waxay tafaysaa sagxadda doonta carruurtu qaylada ayay maqlayaan oo xaggeeda ayay soo aadayaan si wada jir ah ayay u xirxireen albaabada qolka Julia ayaa markaa Casey iyo Ben ku qarisay sanduuqa iyadoo siisay gabadheeda bastoolada faleer gaanta oo u sheegtay inay toogato kaliya marka ay weydo xal kale xiligan ayaa gacan ku dhiglaha wuxuu damcay inuu albaabada jabiyo kaasoo aakhirkii uu ku guuleystay inuu soo galo waxaana waqtigan xaadirka ah ay haweenayda ku dhex dhuumanaysaa musqusha oo ay nabarkeeda xidhay markuu gudaha soo galo dilaagu marka hore wuxuu aadayaa jikada oo uu soo qaadanayaa cunto waxaa cad inuu aad u gaajaysan yahay isagoo gacmihiisa ku haysta daasad cunto ah ayuu ninku bilaabay inuu baaro doonta iyadoo naagtu ay ku hubaysan tahay midida jikada wuxuu soo galay qolka laakiin Julia way booday iyadoo ku dhuumatay doonta hoosteeda gacan ku dhigluhu daloolka ayuu ka soo eegayaa laakiin ma arkayo si kastaba ha ahaatee eygii ayaa ku soo yaacay haweenayda waana inay dishaa ninku wuxuu maqlayaa oohinta banaanka ayuu u soo baxayaa oo wuxuu helay meydkii eygiisa waqtigan xaadirka ah Julia waxay kor u fuulaysaa doonta iyadoo sii maraysa marinka dhinaca kale waxayna si toos ah ugu dhacaysaa gacmihiisa wuu garaacay oo ku tuuray fadhiga oo uu cunaha ka qabtay isagoo damacsan inuu ceejiyo gabadha way arkaysaa waxaan oo dhan oo waxay ogaatay in kani uu yahay xalka ugu dambeeya daboolkii sanduuqa ayay furtay oo ninkii toogatay dhinac baa loo tuuray laakiin doonta waxaa wada qabsaday dabka faleer gaanta Julia waxay ku amartay carruurta inay baxsadaan halka ay iyaduna dhuumasho ku soo gashay jikada waxaa soo baxday in gacan ku dhiglaha uu dhaawacmay oo kaliya uuna isku dayayo inuu mar kale soo weeraro hooyada carruurta dhashay ayaa laaday oo soo qabsatay boorsooyinkii diyaarsana oo banaanka u soo booday halkaasoo Ben uu ka helay meydka aabihiis Casey ayaa meesha ku soo oroday sidoo kale oo ku dul oyday meydka Julia waxay dhunkatay ninkeedii dhintay laakiin waxay aragtay in gacan ku dhigluhu uu ka booday doontii gubanaysay oo ay carruurtii ka haysay doontii ayaa gadaashooda ku qaraxday reerku waxay dhex yaacayaan saxaraha cidlada ah waxaanay muddo yar kadib gabaad ka dhigteen tog dhagax ah oo ay durduro biyo ahay soo maraan balse biyuhu ay yihiin kuwo cusbo leh oo aan la cabi karin Casey waxay walaalkeed la wadaagaysaa sahay yar oo biyo ah laakiin wuu diiday inuu cabo wiilku wuxuu dareemayaa dembi sababtoo ah waxay u badan tahay in dilaagu uu u yimid kadib markii uu arkay buufintiisa Casey ayaa sidoo kale muujinaysa fikirkan laakiin hooyadu waxay ku amartay gabadheeda inay aamusto oo ay qiil u samaynaysaa wiilkeeda sababtoo ah wax xun ula muusan jeedin waxay ka codsanaysaa carruurta inay isdiyaariyaan waayo jid dheer ayaa ka horeeya deedna waxay arkaysaa ninkii oo si madax adayg ah u soo raacaya raadkooda reerku way tegayaan fiidkii Ben wuxuu helay kaluun baqtiyey oo isku dayay inuu qalo laakiin Julia waxay aragtay dilaagii oo u sheegtay carruurtii inay ordaan wax yar kadib waxay ku soo baxeen dhul balaaran oo ay daadsan yihiin kiimikaalada sunta ah ee ku jira foostooyin laakiin Julia ayaa si bareer ah ugu dhex socotay iyada iyo carruurta inkastoo ay jirtay khatar sababtoo ah dilaaga kama fogeyn qoysku waxay marayaan gunta hoose ee badweyntii hore iyagoo dhex mushaaxaya caagado iyo qashin kale oo ay dadku ka tageen wax yar kadib Julia waxay ogaatay in Ben uu gebi ahaanba fooq baxay oo ay siinaysaa gororkii ugu dambeeyay ee biyaha gabadhu waxay noqonaysaa mid argagaxsan sababtoo ah sinaba uma noolaan karaan laakiin hooyadu waxay ku amartay inay sii socdaan wax yar kadib waxay helayaan burburka dayuurad muddo hore badda ku dhacday oo gudaha u fuuleen say u nastaan Julia waxay eegaysaa sawirkii ugu dambeeyay ee qoyskooda waxayna ka sheekaynaysaa sheeko ku saabsan aabahood iyo markii ugu horeysay ee ay wada kulmeen kulankooda wuxuu ka dhacay isbitaalka ay ka shaqaynaysay Tom halkaas waxaa loo keenay in lagu dabiibo kadib
markuu sameeyey qoysitaan aan lagu guulaysan maadaama uu badyaqaan ahaa. Caruurtu way ooyayaan iyagoo dib u xusuusanaya aabahood wayna sagootiyeen. Habeenkii Casey waxaa soo toosiyey dhawaaq oo intay soo baxday ayay ag fadhiisatay diyaaradda. Gacan-ku-dhigluhu wuxuu u soo soconayaa xaggeeda isagoo mugdiga ka soo baxaya oo aan ogeyn in gabadhu ay dabin dhigayso. Wuxuu damcay inuu qabto balse Julia ayaa ku soo yacday oo ninkii midi ku dishay. Qoraxdu markay soo baxdo, reerku waxay isu diyaariyeen inay sii wataan safarkooda, waxayna si lama filaan ah u arkeen in gacan-ku-dhiglihii jidhkiisa la rugay. Taasina waxay ka dhigan tahay in saxaraha uu joogo wax ka sii argagax badan ninkan. Way baxayaan. Julia waxay hubinaysaa waddada khariidadda halka Ben uu horay u sii socdo. Hooyada ayaa ku qaylinaysa iyadoo isku dayaysa inay joojiso, laakiin wiilkii ayaa ku orday bali milix leh oo uu ku guulaystay inuu cabo dhowr kabasho. Way soo jiiday laakiin wiilku wuu bukooday. Wax yar kadib kooxdu waxay helaysaa kuraas caag ah. Markay ka samaystaan gabaad ay qoraxda ka galaan ayay nasteen. Si lama filaan ah Julia waxay maqlaysaa dhawaaqyo la yaab leh. Banaanka ayay u soo baxaysaa oo waxay arkaysaa wax ku khasbaya inay caruurta kiciso. Iyagoo xaqiiqsaday khatarta cusub waxay u degdegayaan inay ordaan. Wax yar kadib reerku waxay arkayaan markab weyn oo ay konteenaro jajaban hareerihiisa yaalaan. Dhowr qofna ay ag wareegayaan. Julia way u qaylinaysaa laakiin markay arkeen kumanaan carsaanyo oo waaweyn waxay ku cararayaan konteenarka oo ay albaabada ka xidheen iyagoo iska indhatiray codsiga caawimaadda qoyska. Kadib saddexda jilaa ee ugu muhiimsan waxay fuulayaan konteenarka halka mid ka mid ah carsaanyooyinka uu ku guulaystay inuu dhaawaco Julia lugteeda. Si kastaba ha ahaatee qoyskan oo saqafka sare fadhiya ayaa kor ka daawanaya marka ay carsaanyooyinka ka galayaan dildilaaca albaabka konteenarka iyadoo ay dadku isku dayayeen inay toogtaan. Haddana carsaanyadu waxay dilaysaa qof kasta oo gudaha ku jiray. Islaantii ayaa lugteeda maro ku duubtay oo suuxday. Subaxdii waxay kaligeed ku soo kacday dabayl xooggan oo ay bilowday inay caruurta ugu yeedho si cabsi leh. Laakiin waxaa soo baxday in carsaanyooyinkii ay fogaadeen oo ay caruurtu soo degeen si cunto iyo hub u helaan. Julia ayaa nabarkeeda gubaysa halka Ben uu baarayo konteenarka. Kadib markii ay baareen konteenarka waxay helayaan xoogaa biyo iyo cunto ah. Julia waxay jeebka mid ka mid ah dadka dhintay ka heshay taarka gacanta oo ay wacday Kabtan Now. Wuu ka jawaabay oo sheegay in sidoo kale ay soo weerareen carsaanyooyin. Si kastaba ha ahaatee baddu si dhaqso ah ayay u soo noqon doontaa. Waana sababta ay xayawaanadu u soo yaaceen. Julia waxay ka codsanaysaa inuu badbaadiyo caruurteeda, laakiin ma garanayso meel ay aado sababtoo ah waxaa ka lumay khariidadda. Dabadeed ninku wuxuu ridayaa faleer gacanta. Ben wuxuu ogaaday jihada uu ololku ka soo muuqday. Qoyskuna jihadaas ayay u yaaceen. Wax yar kadib waxay meel fog ka arkayaan gujiska yar ee jaalaha ah, laakiin aad bay u adag tahay in la gaaro sababtoo ah gunta hoose ee badda ayaa dib u soo maaxanaysa. Casey kama helayso ereyada hooyadeed ee ku saabsan badbaadinta caruurta, laakiin Julia ma rabto inay ka jawaabto su'aalaheeda, waxayna sii wadaysaa qoyska. Waa inay maraan tog ay ka buuxaan kiimikaalada sunta ah. Hal meel ayay la kulmeen dhagax dhacyo. Juliana waxay ka hadhay caruurta. Waxay ku amartay inay sii socdaan. Markii Casey ay diiday inay sidaas samayso, hooyadu waxay weydiisatay inay badbaadiso walaalkeed. Casey iyo Ben waxay ka soo baxeen toga oo waxay gaareen goobta gujiska yar, laakiin ma jiro qof gudaha ku jira. isla markiiba Now oo dhaawacan ayaa ka soo baxay gujiska yar gadaashiisa. Wuxuu qirtay inuusan haysan fursad uu ku sii noolaado, wuxuuna ku amray inay gudaha galaan. Laakiin Casey waxay u soo noqotay hooyadeed oo rasaasaynaysa carsaanyada soo muuqatay. Waxay ku dhowdahay inay ka dhamaato rasaasta markii Casey ay soo fuushay xayndaab dhagax ah oo ay ku gaadhay hooyada gacanteeda. Waxay maareynayaan inay gaaraan gujiska yar oo ay gudaha u fuulaan, halka Now lagu dilay cidiyaha carsaanyada soo laabatay. Qoysku waxay fuulayaan gudaha gujiska yar markii hirbadeedku ka soo muuqdo buurta. Biyuhu waxay soo qaadayaan gujiska yar oo ay ku dul jiidayaan dhagaxyada. Wax kastoo dhacay maalmihii dhowaa waxay ka soo muuqanayaan indhaha Julia hortooda. Markay soo miyirsatay waxay ogaatay in gujisku taagan yahay. Julia ayaa furtay albaabka. Kadib markay ka baxeen, qoysku waxay isku arkayaan magaalo burbursan oo ay keeneen mawjadaha. Muuqaalku halkan ayuu ku eg yahay. Fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena commentiga hoose noogu reeb. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. mahadsanid.